ninkan Turkishka Muslimka ah waxa uu ka soo baxay safaaradda isla markaana waxa uu wataa midi ama toorey sida u taqaano. Come to me. Not from here. Listen, I'm just filming, You're yeah? bending the Quran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saaxiibayaal soo dhawaada, magacaygu waa Cabdirasaaq Cariif. waxaa idin rajeynaya dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan sida anigu caafimaad qabo. qof walba oo xanuunsan waxaan alle ugu baryaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo. haddii ay tahay markaa kugu horeysaa soo booqato YouTube channel Tribestar, sidoo kale videogan like saar, asxaabtaadan u share garee. aad iyo aad u mahadsan tahay. ninkan aad u jeedaan ayaa waxa uu sameynayaa in uu meel babliga soo istaago. halkaani waa magaalada London, gaar ahaan meesha ay ku taalo safaaradda Turkiga. ninkan cadaanka ah meeshan ayuu soo istaagay kolley ku talagal in uu gubayo yacni safaaradda Turkiga agteeda, ama in yacni uu meesha iskala qabsado isdhaha meeshana kitaabka Qur'aanka ku gubi kartaa. taas Allahu aclam oo alla ayaa naga og. laakiin ninkan waxa uu taagan yahay hadda barta uu taagan yahay oo kitaabka Qur'aanka ku gubayo waa safaaradda Turkiga meesha ay ku taalo. ninkan ayaa soo baxsaday jaantihiisa isla markaana wuxuu gubay kitaabka Qur'aanka ah sida aad arki kartaan. nin Turkish ah ayaa meesha ka soo baxay safaaradda. kolley dadka meesha ka shaqeynayeen inay yihiin shaqaalaha howlwadeennada ah, ama in uu yahay yacni qof markaa safaaradda oo uu soo duuntay howlo gaar ah, taasi ma xaqiijin karno. laakiin ninkan Turkishka Muslimka ah waxa uu ka soo baxay safaaradda isla markaana waxa uu wataa midi ama toorey sida u taqaano. waxa uu ku waabinayaa oo ku bursanayaa ninka kitaabka Qur'aanka gubaya. kadibna waxaa waaye kitaabka Qur'aanka ayuu la dhacay oo asiga dhulka ku dhacay. mid kale marka waxaa waaye oo kaamiro ka duubayo wuxuu leeyahay ha dhibaateyn ninka oo midida ku dhufan. laakiin ninkan Turkishka Muslimka ah nin diintiisa ilaashanaya waa muslima. ninkan sida u jeedaan waxaa waaye waa dhibaateeyey xaaraantii waxba ku dhufta, laakiin midi iyo wax kale oo dhibaato kale ma u geysan. wuxuu leeyahay weliba religion oo leeyahay waa diinteeda waa leeyahay kitaabka Qur'aanka. God, the man's come out with a knife. The man's come out with a knife there. Boss, look here, look. Not from here. Look. God, he's got a knife. Go. Oh, you got a knife, man. Don't come to me. Not from here. Listen, I'm just filming, You're yeah? bending the Quran. No, you shouldn't be. Listen. My religion. You don't bend Quran. maasha allah. ninkan oo asigana wadada maraya deliveriga ah, asigana videona waa ka duwanaya, sidoo kale xaraantiina waa ku dhufanaya. ninkan wejigiisa fiican looma arkin, sidoo kale ma wato wax oo taari kale dib uraac loogu samayn karo ma wato. keliya baaskiil oo wataa, sidoo kale koofiya madaxa noogu jirto oo ilaa wejiga, marka lama arki karo oo wejigiisa taa lama garanayo. laakiin ninkan kale oo Turkishka ah wejigiisa waa muuqdaa. sidoo kale meesha uu jooga waa meesha safaaradda ee oo Turkiga kusoo baxaya. marka booliska imaado oo sidaasna waxaa waa ninkan Turkishka ah muslimka lagu qabtay بتهمة الاعتداء على هذا الشخص. في المقابل لم يتم القبض على هؤلاء الشخصين. haddaba muuqaalkani waxaan kusoo gabagabeynayaa khudbad uu ka jeediyey madaxweynaha dalka Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan ee uu ku dhaleeceynayay wixii lagula kacay safaaradooda ee ku taalay dalkaasi ee Ingiriiska. waxa uuna sheegay in ay marnaba sidaasi sharaftooda iyo sumcaddooda hoos ugu dhicinin, si walba oo loola dhaqmo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah, mar walbana ay ku faanayaan diintooda iyo islaamnimada. Bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız. Ama sizi alaşağı edeceğiz. Bunu da bil.
Siz her şeyden önce ya kimsiniz de bizim kutsalımıza veya kutsallarımıza saldırıyorsunuz? Biz sizin nedenli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Biliyoruz. Bunu zaten her yerde yaptınız, yapıyorsunuz. Yeni tanımadık sizi. Fakat ne kadar siz bunları yapsanız da biz sizin kutsallarınıza aynı dille saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz. Bizim bir duruşumuz var. Bizim bir karakterimiz var. Bizim bir yapımız var. Biz kime, nerede, hangi dille konuşulacağını gayet iyi biliriz. Onun için de kim ne derse desin, biz hakikatleri haykırmayı Videogan ayaa jeclaystay inaan idinla wadaago aad iyo aad aa umahadsantahay video dhammaadkiisa soo gaartay fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkan subscribe saar sidoo kale asxaabta ugu sheer garee aad iyo aad aa umahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu